soo dhawaada taxanaha qaybtii shanaad ee maalmihii tagay anigoo maahir jaamacadana ayaa idinla socodsiinaya. Odaygii intuu soo eegay ninkii ayuu haddana ka jeestay, wax jawaab ahna ma odhan. Xoogoo daqiiqadaha kadib ayuu aniga igu yidhi, magacaygu waa Cusmaan. Malaha sidaan ugu maqanahay ama eegmadayda ayuu la yaabay. Anna waxaan idhi haye Cusmaan, haye. Kadib wuxuu ii bilaabay sheeko teelteela maadaama aan ahay qofka u sokeeya ee ku fadhiya kursiga ugu dhow meesha sagxadda ee uu fadhiyo isaga. Waana fahmayay badi lahjadiisa, laakiin waxaa iga baxsanayay mararka qaar erayaan u arkayay muhiim inaan ogaado. Waxaan ahaa xoololey, abaar xoog leh baa nugu dhufatay, kadib xoolihii baa iga dhammaaday. Waxaa xigay dagaal qabiil oo tuulooyinkaas dhexdooda ah, waxaana carruurtaydii oo aan qaangaarin lagu laayay dhammaan aana qabiil ayagoo gurigooda ku jira. Islaantii hooyadood ahayd ee dhashay way waalatay, waana sakaraad hadda. Reero tola ayaan ku soo dhaafay, waxaan ku socdaa Jilib oo uu degan yahay nin aan ilmo adeeran nahay oo beer ku haysta halkaas. Waxaan rabaa aniga iyo islaantayda inuu na siiyo meel aan ku noolaanno. Intaas waa warbixintiisii aan fahmay, waxaase jiray hadallo kale uu igu yidhi balse aanan lahjada darteed u fahmin. Aniga ayaa waxaan ku yidhi haddii ay xaaskaagu marxaladaas ku jirto maxaad uga soo tagtay. Wuxuu igu yidhi xaaskaygu ma dilayaan, waayo iyadu waxay ka dhalatay ayaga reerka carruurtayda laayay. Marka bartilmaameedka wuxuu ahaa aniga iyo carruurtayda. Hadda aniga qudhayda ayaa baxsada. Dhagaystay kuwa hooyadaas ilmaheedii laayay oo odaygeediina uu ka soo baxsaday. Waxay isu arkaan kuwa hooyadaas difaacay oo wax taray. Marna lama ahan kuwa xitaa u fahmaya inay ciqaabtii ugu darnayd ee dunida dusheeda lagu maro ay badeen hooyadaas. Waxaa dhaba in maalmihii tagay ay noo dhaafeen casharro badan oo aan dib loo raacin, kuwaasoo weli qaarkood ay taagan yihiin. inta aan Cusmaan sheekada la waday ayaan waxaan arkayay ninkii xerowga ahaa ee Ibraahim iyo Ikraan isku meheriyay oo markasta asagoo dhoolla cadaynaya na soo eegaya. Wax yar kadib islaantii tusbaxa weyneyd ee fadhiday dhanka daaqadda kursiga aan fadhino ayaa igu tidhi, wiilkaas ma aragtaa? Waxaa ii tilmaamaysaa oo ay farteeda ku taagaysaa ninkii xerowga ahaa ama suufiga ahaa. Waxaan idhi ma aqaano, laakiin mar buu arrin yar iga sheekeeyey. Waxay tidhi aniga ayaa dhalay wiilkaas, magaciisuna waa Maxamed Suufi. Aabbihii wuxuu caan ka ahaa dhulka waamo oo dhan, laakiin waa la dilay. Isaga wuxuu ahaa nin aabbihii aad uga bartay diinta, laakiin maskax ahaan ma aha nin fiyow oo wuxuu naga lumay sannado ka hor ilaa iyo 4 sano waan baadi goobaynay. Weliba markaas aniga hooyadiisa geeri ayaan ku tirinayay, balse Ilaah baa mahadle oo waan helay. laakiin sanadku dhowaad waxaa haysatay maxkamad Islaami ah oo ku eedaysay wiilkayga inuu dad kale la shaqeeyo. Waxaan ugu dhaartay inuu maskax ahaan jiran yahay wiilkayga, laakiin way iga diideen. Ugu dambayn ayay soo ogaadeen inuusan maskax ahaan taam ahayn. Hadda waxaan u soo kaxeeyey Kismaayo si aan meel baadiya ah quraansaar ugu sameeyo. maamadii waxay hadalka ii raacisay wiilkayga, aabbihii iyo walaaladii sida wadaadkan kuu sheegayay hadda oo kale waxaa dhammaan dilay aniga ilma adeeraday. haddaan xanuunsado way soo booqdaan, waxay ii keenaan qaaraan. Anna marka aan ayaga arko dunida oo dhan baa ii urta, haddana waa tolkay oo waan iska soo dhoweeyaa. xaqiiqdii ma ahan arrintan maqaal ama faallo ku talla wargeys oo uu qofku marka ay dhibto qisadu isku laabi karo wargeyska deetana meel isaga ilaawi karo. waa qiso la xidhiidha nolosha dad raba inay sii noolaadaan. waxaa qalbiyadooda iyo jidhkoodaba wada gaaray dhibaatooyin aan lahayn miisaan, welina lagama dawayn. xanuunku waxay dareemayaan mar walba, laakiin waxay u nool yihiin sida dad weligood faraxsanaa oo aan dhib arag. ayaamaha waqtigu waxarlaysidaanu farxadiyo walaacuga labada qiso dhagaysigooda waxay iga dhigeen ruux kale. laakiin markaan maamada hadalkeedii dhammaystay baan eegay lugta midig ee suufiga oo fadhiyay kursiga iga horreeya. xaqiiqdii waxaad mooddaa in biro daba lagu jarjaray, waa wada nabar, boog iyo dhaawac. hoos baan runtii u ooyey weliba ooyey oohin ciil huwan. waxaanse dhinaca kale isweydiiyey, war suufigan waalan bal ka warran lamaane miyuu isku mehrin karaa? haddii ay Ibraahim iyo Ikraan maqlaan hawshan
ka warrama waxa xaalkoodu noqon karo waayo waa kuwa hadda toddobada farxadda guurkooda ku qaadanaya wadda raf ah cabsi iyo halis badan gaari kulul oo ay badi rakaab daal iyo xanuun haya ay saaran yihiin waxba yaanan taas isweydiinteeda ku sii fogaan waayo xaqiiqdeedii waan ku soconnaa oo aan dul tegi doonnaa waxaan gaarnay tuulada la yidhaahdo xaramka xilligaas waa tuulo yar laakiin aad u cabsi badan mararka qaar inaad dhex joogtaa waa halis inaad ka baxdana waa halis kale sidaa darteed waxaa magaalada jooga rag hubaysan oo inta lacag la siiyo gaadiidka rakaabka sii dhaafiya meelaha cabsida leh haddana ishaynta qabaa'ilka awgii kuguma simi karaan meel nabada mar kastana halista waxay shacabka ka soo gaartaa meelaha deegaan ahaan ay qabiiladu ku kulmaan ama sida xuduudo laba dowladood isku hor fadhiyaan maleeshiyaadkooda waxaa habeenkaasna la amray inaan seexanno tuuladaas xilliga salaada subax markaan tukanno aan u dhaqaaqno dhinaca jilib sidii ayaan yeelnay waxaa cajiiba xitaa habeenkaasi waxaan cunno kama aanan helin tuuladaas waayo tuuladu maalmo ka hor ayuu ka dhacay dagaal oo lagu kala wareegay gacan ku haynteeda habeenkaas aan tuuladaas joogno waxaan u arkay muhiim inaan asxaabtaydii wakhti la qaato waxaan u tegay Firdowsa oo gaar u fadhida salaan kadib waxaan weydiiyey xaalkii lamaanaha waxayna igu tiri darin bay qaateen oo meel geesa oo halkaas ah ayay joogaan marka hore waan la cabsaday haddana Firdowsa ayaan u arkay qof degan oo aan wax la falanqayn karo waxaan idhi ninka isku mehriyey Ibraahim iyo Ikraan ma taqaanaa adiga waxay tiri haa waan aqaanaa aniga Firdowsa gabadhaas yar oo saaxiibadeena ah iyo wadaadka iyo Ibraahim basa ayaan ahayn waxaan ku idhi nakeen waxaan geeyey meesha ay Maxamed Suufi iyo hooyadii joogeen waan salaamay kadib ayaga iyo Firdowsa ayaan isbaray laakiin muhiimadaydu waa inay Firdowsa aragto bal inuu wadaadku ninkaas ahaa kadib markaan soo laabanay ayaan idhi soo ninkaas ma ahan waxay tiri haa ninka lugihiisa ma arkaysay maxaa kaga dhacay ayay igu tiri haddaba waxaan idhi ninka reerka isku mehriyey waa nin waalan oo hooyadiis 4 sano kadib soo heshay Firdowsa sidayda oo kale mar way naxdaa mar way qosashaa mar waxay dhahdaa war waxan macquul ka weyn waxaan bilownay aniga iyo Firdowsa inaan aad u qosolno markaan isku dhufsanno xisaabaha jira sida lamaanaha faraxsan ee jacaylka guurkooda ku wada caweynaya halkaas iyo wadaadka mehriyey oo isaga oo waalan hooyadii ay gacanta sido laakiin qosolkeenna waxay dadku badi u arkayeen laba dhalinyaro ah oo haasawo qanacsanaan buuxda leh wata hayeeshee ka duwan xaalka sidaas oo diiraddu waa berri maxaa dhici doona Kaan iyo Ibraahim xagee wajihi doontaa qisadooda aniga iyo Firdowsa isku soo noqodkeenna muxuu dhalin doonaa si nabada ma lagu tegi doonaa jilib xagee qisaskan kala duwan ku kulmi doonaan la soco qaybta 6 ee taxanaha maalmihii tagay